mayorka waxaan ugu tagnay inaan habta hambaleeno oo aan ugu hambaleeno xilka cusub ee loo magacaabay waxa aan ka wada sheekaysanay sidii aan taakulayntii iyo gargaarkii awalba aan siin jirnay ummadda Soomaaliyeed inaan halkii ka sii wadno gaar ahaan maamulka gobolka Banaadir iyo caasimadda waad ogtiin Djibouti sidii burburkii ugu dhacay dawladdii Soomaaliya ee dhexe ilaa maanta marna kama aanan bixin la shaqaynta ummadda Soomaaliyeed dhinacyo kala duwan haday noqoto shirar iyo haday noqoto hadda oo ciidan uu joogo oo aan ka garab dagaalamayno ciidanka Soomaaliyeed laakiin hadda waxaan rabnaa maadaama uu dalkii nabadoobayo wadankii dhismayo in aan ka qayb qaadano dhismaha ayaan doonaynaa waxaan ka wada sheekaysanay sidii ay isku kaashan lahaayeen yani labada maamul labada maaragtaan caasimadood ee Djibouti iyo Muqdisho kolka taasna waxa fududeyn doonta inay isbooqdaan oo ay isziyaartaan labada maamul gudoomiyuhu waxa uu soo gudbiyay ama casuumad u gudbiyay maaragtaan dhigkiisa Djibouti in halkan timaado madam Fadumo waxaanan filaynaa inay iyaguna waqti gaaban oo habboon ay ku yimaadeen si aan loo wada bilaabo wada shaqayn hor leh hadii la helo